qiso la yaab leh intay faraxday ayay u duceysay duco qalbiga ka soo go'day. qaliinkii wadnaha uu geli rabayna waa uu ka baaqsaday. nin masaari ahaa oo ku noolaa magaalada Qaahira ee caasimadda wadanka Masar ayaa xanuunsaday, wuxuuna u tagay dhakhtar Masri ah. kadibna waa la baaray, waxaana uu u sheegay dhakhtarkii in mardhow xididada wadnihiisa ay dhiigga qaada ay xirmayaan, waxna aan looga qaban karin wadanka Masar oo si degdeg ah ku tago qaaradda Yurub wadamadeeda mid ka mid ah. ninkii hore ayuu ka dhaqaaqay isagoo cabsi badan ay ka muuqato, wuxuuna u tagay dhakhtar ku yaala wadanka Jarmalka. wuxuu qaabilsanaa dhakhtarkaasi xanuunada ku dhaca wadnaha, wuxuuna la kulmay dhakhtarkii. marka uu baarayna wuxuu u sheegay dhakhtarkii wax yar inay ka harsan tahay in xididada wadnihiisa ay xirmaan, laakiin lagu sameynayo qaliin, taasoo 50% uu dhiman karo 50 uu noolaan karo. micnaha 50-50 waa dhiman kartaa waana badbaadi kartaa qaliinkan. ninkii oo aad u naxay quusna ay ka muuqata ayaa wuxuu ku codsaday dhakhtarkii inuu ku laabto dalkiisii Masar dhowr maalmood si uu u soo macsalaamay ehelkiisii iyo qaraabadiisii qaliinka ka hor, maadaama uu dhiman karo. waana uu ka ogolaaday dhakhtarkii, wuxuuna u sheegay inuu soo dhaqsado oo u imaado. ninkii wuxuu ku laabtay wadanka Masar. wada xaafadiisa isagoo ku socda ayuu arkay gabar meel hilib lagu iibiyo agteeda qashinka lafa ka guranaysa. ninkii wuu istaagay, wuxuuna su'aalay gabadhii sababta keentay in lafaha ay gurato. waxay ugu jawaabtay, ciyaalkayga ama caruurteyda ayaan u gurayaa lafahan. 2 sano hilib ma aysan cunin, waxaan rabaa intaan u kariyo lafahan inaan maraqa ka bixiyo aan siiyo si janka ama hamoonta ay u qabaan hilibku u daayo. ninkii odaga ahaa qalbiga ayaa xanuuna, wuuna naxay, wuxuuna ku yiri nakeen. wuxuu u geeyay ninkii hilibka iibinaya ee ka dhawaa goobta qashinka. odaygu isbargaranayeen oo qoyskiisa ayaa ka adeegtay ninkan, wuxuuna ku yiri gabadhan toddobaad kasta ama asbuuciiba mar ama 2 jeer ay ku imaan doontaa. wax alaale waxa ay hilib u baahan tahay si lacagta aniga bixinaya, haddii aan dhintana qoyskayga ayaa ku siin doono. way faraxday, waxayna u duceysay duco qalbiga ka soo go'day. allow ku caafi oo ku sii wax walba aad jeceshahay inta aad nooshahay ayay ku tiri. xaaladiisa ayuu u sheegay in qaliin wadnaha uu geli rabo, laakiin duco aan kala go' lahayn ayay ku harqisay, iyadoo tani intuu gurigiisa uu ka galay sii fiirinayso oo sii duceynaysay. hilibkii ayay qaadatay, caruurteedii ayana ka farxisay oo u karisay. dhowr maalmood kadib ninkii waxa uu dib ugu noqday wadanka Jarmalka. dhakhtarkiisii ayuu hore ka abaaray isagoo qaliin isku diyaariyay markan, laakiin dhakhtarka waxa waajib ku ah ka hor intuu san wax qalin inuu baaritaan sameeyo. baaritaan ayuu sameeyay, balse natiijadu uu ogaaday qaliinka meelaha looga sameyn karo. jawaabta natiijada dhakhtarku soo baxday aad ay cajiib u ahayd, wuxuuna ku yiri dhakhtarkee ku soo daweeyay waad soo daweysay isbuuca aad naga maqneede. ninkii wuxuu ugu jawaabay maya, maan isdaweyn, meel kalena maba aadinba oo dhakhtar ma tegin, gurigayga kaliya ayaan joogay. dhakhtarkii runtii wuu qaadan waayay, waxayna ku noqotay fajiciso. wuxuuna dhakhtarkii ku yiri okay, waxaad qaadatay daawo taasoo furfurtay xididadii oo dhan, hadda wadnahaaga iyo xididadu si fiican bay u shaqeynayaan, mana u baahna qaliin. ayaa ku siiyay daawadaas ayuu sii raaciyay si dadka noo imaaday adigoo kala intaanan qaliinka ugu sameyn ka hor aanu siina anagana. ninkii wuxuu yiri anigaa garanaya, waxa ay daaweeyay Ilaahay. markii aan mid kamid ah adoomadiisii u naxariistay ayuu ii naxariistay, isaga ayaana daawadan isiiyay. alxamdulillaah. wuxuuna hadalkiisii kusoo gabagabeeyay alxamdulillaah, Ilaahay baa mahad leh, kaasoo soo nooleyn kara lafaha markay burburaan oo duqoobaan. adoomadiisa markay isku naxariistaanna asna ku shuba sida roobkii oo kale naxariistiisa. subxaanallah. waa qiso dhab oo ka dhacday wadanka Masar. dulucda iyo ujeedada qisadan ay idinkula wadaagayna waxa ay tahay dawada inta badan meelaha laga raadiyay dhaadheer maba jirtay, waxa ay taala agteena. ducada dadka kaalmaatiga u baahan iyo in loo naxariisto dadka fuqarada iyo masaakiinta waxa laga heli karaa daawo lacag la'aan ah. aan u naxariisana mar walba dadka naga danta yar. waa farsamadii iyo isku dubaridkii Maxamed Cabdiraxmaan Yangimoha.